faahfaahinno ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal khasaare geystay oo saaka ku dhex maray ciidanka Somaliland iyo kuwa uu hogaamiyo generaalka lagu magacaabo Care deegaano ka tirsan gobolka Sanaag. Axmed Cabdi ayaa ka waramay. warar dheeraad ayaa laga helayaa dagaal magaalada Cergaabo ee gobolka Sanaag dowladkeeda ku dhex maray ciidamo kala taabacsan jabhadda uu hogaamiyo Cornel horey uga soo goostay ciidanka Somaliland oo lagu magacaabo Saciid Awil Jaamac Care. sarkaalkan iyo sidoo kale ciidanka uu hogaaminayo ayaa la sheegay inay saakayto ay ka ruuqaansadeen fariisimo ay ku lahaayeen deegaana ka tirsan gobolka Sanaag isla markaana ay aadeen deegaano horle halkaasi oo markii dambe sababtay inay iska hor imaad u dhaxmaro ciidanka Somaliland ee fariisimaha ay ku socdeen ciidanka Cornel Care iyo sidoo kale jabhadda uu hogaaminayo janankan. sarkaalkan ayaa horey uga soo goostay ciidanka Somaliland waxaana wararku ay sheegayaan in dagaal dhowr daqiiqado qaatay uu halkaasi uu ka dhex maray. dadka deegaanku waxa ay sheegeen inay maqlayeen daryanka madaafiic culus oo ay isku adeegsanayaan dhinacyada dagaalamay waxaana jira sida ay soo wariyeen ila ku dhow jabhadda Cornel Care iyo sidoo kale dadka deegaankuba inuu khasaaro labada dhinac uu ka soo gaaray dagaalkii saaka ka dhacay duleedka magaalada Cergaabo ee gobolka Sanaag. jabhaddan ilaa iyo hadda faahfaahin kama aysan bixin halka ay ku wajahnayd laakiin waxa ay ka ruuqaansadeen fariisimo ay dhowaan kala wareegeen ciidanka Somaliland kadib markii dagaal uu ka dhacay isla aaga maanta dagaalku uu ka dhacay. Somaliland ayaa horey waxa uu sheegtay in ay dagaal ay kula jirto jabhaddan oo sarkaalka hogaaminaya oo horey ugu soo goostay ciidanka Somaliland inkastoo ilaa iyo hadda aysan jirin cid si rasmi ah u hoos tago sarkaalkan laakiin inta badan Puntland ayaa sheegtay in ay markaasi xiriir dhow ay la leedahay. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isagu maalin ka hor waxa uu sheegay in uu wada hadal u socdo jabhadda iyo sidoo kale ciidamada uu hogaaminayo isla markaana ay suurtagal tahay in wada hadal lagu dhameeyo khilaafkii jiray ee sababay inuu goosto sarkaalkan. dhinaca kalena waxa wararku ay sheegayaan in ay markaasi madaxweynaha Somaliland lagu waday inuu booqdo deegaano ka tirsan gobolka isagoo oo markaasi la kulmi lahaa saraakiisha jabhadda mana cadda waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan iyo wada hadalkooda hore waxyaabaha ka suurta gashay. xeer ilaalinta ciidanka Jubbaland ayaa waxa ay awaamiir adag dul dhigtay ciidamada maamulkaas iyadoo dhinaca kale ugu baaqday inaysan faraha la gelin doorashooyinka maamulka Jubbaland. Xuseen Washington ayaa warkan faahfaahinaya. xafiiska xeraalyaha guud ee ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo saaray awaamiir cusub oo ku socda guud ahaan qaybaha kala duwan ee ciidanka maamulkaas. xeraalyaha Jubbaland ayaa ciidamada faray in ay fuliyaan awaamiirta uu soo saaray isla markaana ay qayb ka yihiin in ciidamada Jubbaland ay ka madax banaanaadaan arrimaha siyaasadda doorashooyinka la filayo in dhawaan ay ka dhacaan magaalada Kismaayo caasimadda maamulka Jubbaland. ugu dambeyntii xafiiska xeraalyaha guud ee ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa saraakiisha faray in ay fuliyaan awaamiirta isla markaana ciidii fuloweysa ay si degdeg ah u horkeenaan xafiiska xeraalinta. awaamirta ka soo baxday ciidanka xafiiska xeraalyaha Jubbaland ayaa waxa uu qornaa waa in aad ka madax banaanaataan arrimaha siyaasadda doorashooyinka waa in aad ka madax banaanaataan qabyaaladda iyo awood waa qaybsiga sidoo kale waa in aad ka madax banaanaataan nin jeclaysiga waa in aad ka madax banaanaataan waa in aan la idinku arki karin groups iyo wax la mid ah. waxaa ka mamnuuca ciidanka Jubbaland gebi ahaan waxa la yiraahdo laaluush. qof kasta oo askari ah waxaa waajib ku ah inuu ilaaliyo dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland. waxaa waajib ku ah askarta dhammaanteed inay ilaaliyaan anshaxa sidoo kale iyo dowladnimada. waxaa waajib ku ah in askarta inay ka fogaadaan falanqeynta arrimaha doorashooyinka iyo fadhi ku diriiryada. waa in ay aad u isticmaalaan dadka iyo waa in aadan u isticmaalin dadka iyo bulshada qaybeeda kala duwan. waa in la ilaaliyo arrimaha doorashooyinka amniga sidoo kale waa in la ilaaliyo arrimaha ka soo baxa saraakiisha ciidanka Jubbaland ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xafiiska xeraalinta. ugu dambeyntii xeraalinta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa fartay dhammaan saraakiisha ciidanka Jubbaland inay si degdeg ah u horkeenaan xafiiska xeraalinta cidii fulin weysa awaamirta uu soo saaray isla markaana laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan.
qaxooti Soomaali ay ku jiraan ayaa daaweyn indhaha ah waxaa loogu sameeyay xerada Dadaab ee dalka Kenya. dhaqaatiirta dalka Turkiga oo ka socday hay'adda iskaashiga iyo xiriirinta Turkiga ee Tika waxa ay howlgal daweyn iyo fiiqis indhaha ah ay ka fuliyaan xerada qaxootiga ee Dadaab iyo qeybo ka tirsan waqooyi bari ee dalka Kenya. howlgalkaas oo ahaa mid lacag la-aan ah waxaa lagu maamuusayay munaasabadii saddexaad ee kasoo wareegatay markii la fashiliyay afgembigii xilka looga tuuri lahaa madaxweynaha dalka Turkiga July 15keedii ee sanadkii 2016 tagtay. howlgalka ay dhaqaatiirta Turkigu ay ka wadeen daweynta indhaha waxa uu bilowday bishan July 15keedii sida uu sheegay xiriiryaha hay'adda Tika u jooga dalka Kenya Emre Yüksek oo la hadlayay wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu News Agency. waxa uu tilmaamay in ay ku guuleysteen 250 howlgalkaasi si nabadgelyo ah oo ay ka fuliyeen xerada Dadaab iyo sidoo kale magaalada Garissa. 20 caruur ayaa ka mid ahaa dadka loo fidiyay daweynta indhaha halka 40 bukaano kale ah indhaha loo fiiqay kuwaas oo haatan wax arki kara isla markaana xaaladoodu ay aad u wanaagsan tahay. taliyaha cusub ee ciidanka howlgalka militariga Mareykanka ee Africom General Stephen Townsend ayaa la filayaa inuu xilkaasi la wareego waxaana la filayaa inuu booqasho ku imaan doono Soomaaliya si uu ugu koorgalo hanaanka howlgalada Africom ay ka wadaan Soomaaliya kaasi oo ay kula dagaalamayaan Al-Shabaab iyo Daesh ku sugan Soomaaliya. General Stephen oo shalay ka hadlayay munaasabad lagu qabtay xarunta dhexe ee howlgalka midowga Afrika waa howlgalka Africom ay ku leeyihiin magaalada Stuttgart ee ku taala dalkaasi Jarmalka. waxa uu ku nuuxnuuxsaday in uu ku qanacsan yahay howlgalada militari ee Mareykanku ay ka wadaan Soomaaliya isagoona amaanay howlihii ay qabteen taliyaashii isaga ka horeeyay. General Stephen waxa uu sheegay inuu socdaalkiisa ugu horeeyay asbuucan soo socda uu ku tagi doono dalal ku yaala bariga Afrika halkaasi oo ay Mareykanku ka wajahayaan xaalado adag oo dhinaca ammaanka ah waxaana dalalkaasi ka mid ah Soomaaliya. isagoo la hadlayay wargeyska The Star and Stribis waxa uu xusay inuu si taxadar loo qiimeyn doono wax kasta oo taliska Africom ka sameeyo isla markaana aan dejin doonin qorshaha howlgalka Soomaaliya. mar wax laga weydiiyay haddii ay qorsheynayaan inay isbedel ku sameeyaan howlgalada militariga ee ka socda Soomaaliya waxa uu sheegay inuu qiimeyn doono wax kasta oo ay Africom sameynayso. waxa uu intaasi ku daray inay doonayaan inay dib u eegis ku sameeyaan aragtiyada iyo sidoo kale socodsiinta howlgalka Africom ay ka wadaan Soomaaliya. dhinaca kale waxa uu tilmaamay in militariga Mareykanku ay qaab taxadar leh u qaadi doonaan duqeymaha dhinaca cirka ah ee diyaaraduhu ay ka fuliyaan Soomaaliya si loo yareeyo khasaaraha soo gaara dadka rayidka ah. si kastaba taliska Africom ee Soomaaliya ayaa waxa ay sanadkan oo kaliya fuliyeen 46 duqeyn dhinaca diyaaradaha ah kaasi oo ay la beegsadeen deegaano ay sheegeen inay ku xoogan yihiin Al-Shabaab iyo Daesh ka dagaalanta Soomaaliya. warkaas waxaad kala socotaan idaacadda dalsan ee magaalada Muqdisho markana wararka ka baxsan Soomaaliya. dowladda wadanka Bahrain ayaa waxa ay xukun ku filisay xubno ka tirsan shiicada dalkaasi. xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi Ahmed Al-Hamadi ayaa waxa uu shaaciyay in 3 qof oo ku eedeysnaa falal la xiriira argagixisanimo maanta lagu fuliyay xukun toogasho. qoraal kooban oo soo dhigay bogga uu ku leeyahay Instagram-ka waxa uu ku sheegay in 2 ka mid ah dadka la dilay ay ka dambeeyeen fal lagu dilay sarkaal ka tirsanaa ciidanka booliiska dilkii imaam masjid iyo sidoo kale xubno ay xabsiga ka sii daayeen 10 eedeysane bishii Janaayo sanadkii 2017. labada nin ee maanta lagu dilay caasimada dalka Bahrain ee Manama ayaa waxa magacyadooda lagu kala sheegay Ali Al-Arab oo 25 sano jir ahaa iyo sidoo kale Ahmed Malali kaasi oo 24 sano jir ahaa kuwaasi oo siyaabo kala duwan loo soo xiray
bishii Febraayo sanadkii 2017 laguna xukumay dil bishii Janaayo ee sanadkii hore. dhinaca kale qoysaska raggaasi maanta la dilay ayaa waxa ay shalay waxaa looga yaray xabsigaasi ay aragtidii ugu dambeeyay u arkaan wiilashooda kuwaasi oo saaka lagu fuliyay xukunka maxkamaddu ay ku riday. ugu dambeyntiina dowladda Cumaan waxa ay dhexdhexaadinaysaa Iiraan iyo dalka Mareykanka. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Cumaan Yusuf bin Alawi waxa uu maanta booqasho ku tegay caasimadda dalka Iiraan ee Tehraan isagoo kulan la qaatay dhigiisa dalkaasi Maxamed Javad Shariif. labada mas-uul waxa ay ka wada xaajoodeen xiisada Iiraan kala dhaxaysa Mareykanka iyo sidoo kale Cumaan xiriir wanaagsan ay la leedahay Iiraan iyo Mareykanka. telefishinka dowladda Iiraan waxa uu sheegay inay labada wasiir ay kulan yeesheen balse faahfaahin kale lagama bixin waxa ay ka wada hadleen.